caadooyinka maalmeed waxay keeni karaan beerkaaga dhaawac halis ah. Beerku waa mid ka mid ah xubnaha ugu shaqada adag ee jidhka bini'aadamka. Waxay sunta ka saartaa walxaha waxyeelada leh, waxay ka caawisaa dheef-shiidka, kaydisa nafaqooyinka, waxayna nidaamisaa dheef-shiid kiimikaad. Inkasta oo ay adkaysi cajiib ah u leedahay iyo xitaa awoodda ay u leedahay in ay dib u soo kabsato, beerku maaha mid aan la burburin karin. Dab ahaantii, caadooyin badan oo maalinle ah oo inta badan la iska indho tiro waxay si tartiib ah u keeni karaan dhaawac, taas oo ugu dambayntii keeni karta xaalado halis ah sida cirrhosis, nabaro joogto ah oo beerka ah ama beerka oo shaqayn. Mid ka mid ah caqabadaha leh cudurka beerka ayaa ah inay noqon karto khatar aamusan. Marxaladaha hore waxay keeni kartaa calaamado aan caddayn sida daal joogto ah ama lalabo. Marka uu dhaawacu sii socdo, calaamado muuqda ayaa soo bixi kara. Mid ka mid ah kuwa aadka loo aqoonsan karo waa cagaarshow, halkaasoo maqaarka iyo caddaanka indhuhu isbeddelaan huruud. Halka dadka intooda badan ay la xiriiriyaan cudurka beerka iyo cabitaanka aadka u daran, khamriga kaliya maaha dambiilaha. Halkan waxaa ah 5 caado oo caadi ah oo laga yaabo inay si deggan u dhaawacaan beerkaada. Cabitaanka khamriga oo aad u badan. Khamriga ayaa laga yaabaa inuu yahay sababta ugu caansan ee dhaawaca beerka. Markaad cabto, beerkaagu wuxuu shaqeeyaa si uu u jebiyo khamriga oo uu uga nadiifiyo nidaamkaaga. Laakiin alkohol aad u badan ayaa habraacan xad dhaafiya, taasoo keenta sunta alaabtu inay dhisto oo dhaawacdo unugyada beerka. Cudurka beerka ee alkoholku wuxuu ku socdaa heerar. Marka hore, baruurtu waxay bilaabataa inay ku ururto beerka dufanka leh, badanaa iyadoo aan lahayn wax calaamado ah oo la arki karo oo dib loo rogo haddii cabitaanku joogsado. Cabitaanka joogtada ah wuxuu u horseedi karaa cagaarshow alkohol ah, halkaasoo bararka iyo unugyada nabarrada ay bilaabaan inay sameeyaan marka beerku isku dayo inuu isbogsiiyo. Waqti kadib, nabartan waxay u gudbi kartaa cirrhosis, halkaasoo qalafsanaanta ballaaran ee beerka ay si dhab ah u saamaynayso awooddeeda shaqo. Iyadoo cirrhosis ay adag tahay in dib loo rogo, joojinta cabitaanka waxay kaa caawin kartaa ka hortagga waxyeello kale. Xataa cabitaanka dhexdhexaadka ah, haddii la sii wado sannado badan, waxay qaadan kartaa khasaaraheeda, gaar ahaan marka lagu daro arrimo kale oo halis ah sida cayilka ama isticmaalka daawada. Khubaradu waxay ku talinayaan inaad ku dheganaato wax aan ka badnayn 4 halbeeg oo alkolo ah toddobaadkii, oo ay ku jiraan maalmo aan alkolo lahayn si ay beerkaaga u siiso wakhti aad ku bogsato. 2 cunto xumo iyo caadooyin cunto oo aan caafimaad qabin. Uma baahnid inaad cabto alkolo si aad u yeelato dhibaatooyinka beerka. Dufanku wuxuu ku urursan karaa beerka sababtoo ah cunto aan caafimaad qabin, taasoo keentay xaalad hadda loo yaqaan metabolism dysfunction associated steatotic beerka muscle, oo hore loo yaqaan cudurka beerka dufanka aan khamriga ahayn NAFLD. Dufanka xad-dhaafka ah ee beerka ayaa wax u dhimi kara shaqadiisa iyo wakhti kadib wuxuu keenaa barar, nabar iyo ugu dambayntii cirrhosis. Dadka miisaankoodu sarreeyo, gaar ahaan kuwa caloosha ku sita miisaanka xad-dhaafka ah, waxay u badan tahay inay qaadaan MASLD. Waxyaabaha kale ee khatarta ah waxaa ka mid ah dhiig karka, sonkorowga iyo kolestaroolka oo sarreeya. Cuntada ayaa door weyn ka ciyaarta. Cuntooyinka dufanku ku badan yahay, sida hilibka cas, cuntooyinka shiilan iyo cuntooyinka fudud ee la warshadeeyey, waxay kor u qaadi karaan heerarka kolestaroolka waxayna gacan ka geystaan ururinta dufanka beerka. Cuntooyinka iyo cabitaanada sonkorta leh ayaa sidoo kale ah arrin khatar weyn leh. 2 dib u eegis ayaa lagu ogaaday in dadka cunay cabitaano ma'aan oo sonkor badan ay 4 ee halis sare ugu jiraan inuu ku dhaco cudurka beerka dufanka leh. Cuntooyinka sida aadka ah loo habeeyey sida cunto degdeg ah, cunto diyaarsan iyo cunto fudud oo ay ka buuxaan sonkor lagu daray iyo dufan aan caafimaad qabin ayaa sidoo kale gacan ka geysta xanuunka beerka. Daraasad ballaaran ayaa lagu ogaaday in dadka cuna cuntooyinka la warshadeeyey ay aad ugu dhow yihiin inay ku dhacaan dhibaatooyin beerka ah. Dhanka kale, cunista cunto dheellitiran, cunto cunno dhan ah ayaa kaa caawin karta ka hortagga iyo xitaa rogaal celinta cudurka beerka dufanka leh. Cilmi baadhistu waxay soo jeedinaysaa in cuntooyinka qani ku ah khudaarta, miraha oo dhan, digirta iyo kalluunka laga yaabo inay yareeyaan baruurta beerka oo ay wanaajiyaan arrimaha khatarta ah ee la xidhiidha sida sonkorta dhiigga oo sarreeya iyo kolestaroolka. Joogista fuuq-baxa sidoo kale waa muhiim. Ujeedo ilaa 8 koob oo biyo ah maalintii si aad u taageerto hababka sunsaarista dabiiciga ah ee beerkaaga. 3. Isticmaalka xad-dhaafka ah ee xanuunka baabi'iya. Dad badan ayaa u noqda dawooyinka xanuunka baabi'iya sida paracetamolka madax xanuun, murqo xanuun ama qandho. Iyadoo guud ahaan badbaado leh marka loo isticmaalo sida lagu faray, qaadashada wax badan, xitaa wax yar ka badan qiyaasa lagu taliyey, waxay aad khatar ugu noqon kartaa beerkaada. Naag kaniini qaadanaysa. Xataa xad-dhaafka yar ee paracetamol acetaminophen ayaa kor u qaada halista dhaawaca beerka. Fiskeska Getty Images anta. Beerka ayaa jejebiya paracetamolka, laakiin hawshaas waxa ay soo saartaa shay sun ah oo la yidhaahdo nabqi. Caadi ahaan, jidhku wuxuu ka takhalusaa nabqi isagoo isticmaalaya walax ka hortag ah oo loo yaqaan glutathione.
Si kastaba ha ahaatee, qiyaasta xad-dhaafka ah dukaamada glutatione ayaa noqda kuwa yaraaday, taas oo u oggolaanaysa nabqi inay urursato oo ay weerarto unugyada beerka. Tani waxay keeni kartaa shaqo la'aan degdeg ah oo beerka ah, taas oo noqon karta dhimasho. Xataa qiyaas yar oo xad-dhaaf ah ama iskudarka paracetamolka iyo khamriga waxay kordhin kartaa halista waxyeello halis ah. Had iyo jeer ku dheggan qiyaasta lagu taliyey oo la hadal dhakhtarka haddii aad isku aragto inaad u baahan tahay xanuun joojinta si joogto ah. 4. Jimicsi la'aan. Qaab nololeedka fadhiidku waa khatar kale oo weynaarin u ah cudurka beerka. Dhaqdhaqaaq la'aanta jireed waxay gacan ka geysataa kororka miisaanka, aabbinta insulin, iyo cillad la'aanta dheef-shiid kiimikaadka, kuwaas oo dhammaantood kor u qaadi kara ururinta baruurta ee beerka. Warka fiicani waa in jimicsigu uu faa'iido u leeyahay beerkaaga xitaa haddii aanad lumin miisaan badan. Mid ka mid ah daraasadan ayaa lagu ogaaday in 8 toddobaad oo kaliya ee tababarka iska caabinta ay hoos u dhigtay baruurta beerka 1,3 iyo hagaajinta xakamaynta sonkorta dhiigga. Jimicsiga aerobik sidoo kale aad buu waxtar u leeyahay. Socodka joogtada ee 3 daqiiqo 5 jeer usbuuci ayaa la muujiyey inuu yareeyo baruurta beerka iyo hagaajinta dareenka insulin. 5. Sigaarka. Dadka intooda badan waxay sigaar cabbista la wadaagaan kansarka sambabada ama cudurrada wadnaha, laakiin qaar badan ayaan garanaynin dhaawaca halista ah ee uu u geysan karo beerka. Qiiqa sigaarku waxa uu ka kooban yahay kumanaan kiimikooyin sun ah, kuwaas oo kordhiya culayska shaqada beerka marka uu isku dayayo in uu kala shaandheeyo oo uu burburiyo. Wakhti kadib, tani waxay u horseedi kartaa diiqad oksayd ah, halkaas oo molekules aan xasiloonayn radicaalska horta ah ay waxyeeleeyaan unugyada beerka, xadidaan socodka dhiigga, oo ay gacan ka geystaan nabarrada cirrhosis. Sigaarku sidoo kale wuxuu si weyn kor ugu qaadaa halista kansarka beerka. Kiimikooyinka waxyeelada leh ee ku jira qiiqa tubaakada oo ay ku jiraan nitrosamines, phenyl aloride, tar iyo 4 aminobibhenil waa dhammaan kansarada la yaqaan. Sida laga soo xigtay Ante Research UK, sigaar cabbidu waxay ka dhigan tahay 2 ee kiisaska kansarka beerka ee UK. Jeclow beerkaaga. Beerku waa hubin si cajiib ah u xoog badan, laakiin ma aha mid laga adkaan karo. Waxaad ka ilaalin kartaa adiga oo cabba khamriga si dhexdhexaad ah, joojinta sigaarka, qaadashada daawooyinka si mas'uuliyad leh, cunista cunto dheelitiran, firfircoonida iyo ilaalinta fuuq-baxa. Haddii aad aragto wax calaamado ah oo soo jeedin kara dhibaato beerka, sida daal joogto ah, lalabo ama cagaarshow, ha daahin inaad la hadasho dhakhtarkaaga. Dhibaatooyinkii hore ee beerka ayaa la ogaaday, way sii fiicnaan doontaa fursadda daaweynta lagu guulaysto. Diba Kamner, bare sare oo ku takhasusay barashada farmashiyaha jaamacadda Kingston,